Asalaamu calaykum asxaabta halkan waa Saciid Madaale Sports waxaad kusoo dhawaataan waxyaabihii ugu dambeeyay ciyaaraha Liverpool oo doonaysa inay soo saxiixato laba ciyaaryahan oo ka ciyaara daafaca kana ciyaara horyaalka Serie A. Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay ku jirto boos fiican si ay xagaagan ula saxiixato daafacyada kale ah Denzel Dumfries oo ka tirsan Inter Milan iyo sidoo kale Bremer oo ka tirsan Juventus. Kooxda uu hogaamiyo tababaraha Arne Slot ayaa xilli ciyaareedkan dhibaato ka haysata dhanka difaaca waxaana la filayaa in mudnaan siin doonto xoojinta boosaska daafaca dhexe iyo daafaca garbaha ka hor xilli ciyaareedka cusub. Kabtanka kooxda Virgil van Dijk ayaa 36 jirsan doona bisha Julaay halka Ibrahim Konaté uu qandaraaskiisa u dhacayo xagaagan inkastoo uu dhawaan muujiyay inuu diyaar u yahay inuu heshiiska kordhiyo. Joe Gomez ayaa la filayaa inuu baxo si uu u helo waqti ciyaareed joogto ah halka saxiixa da'da yar ee xagaagii hore Giovanni Leoni uu weli ku kabanayo dhaawac ACL oo muuqda dheer. Sidoo kale Jermaine Frimpong oo Liverpool la soo wareegtay xagaagii hore ayaa xilli ciyaareedkiisa ugu horeysay waxa uu sameeyay dhaawacyo halka daafaca midig ee Conor Bradley uu isna dhaawac ku maqan yahay. Liverpool oo la xiriirinayo Dumfries inkastoo ay Liverpool xagaagii hore ka buuxisay ku dhawaad 450 milyan ciyaartoy cusub haddana waxay weli haystaa dhaqaale ku sameyn karto saxiixyo kale waxaana la sheegay in laba ciyaaryahan oo ka tirsan Serie A la beegsanayo. Wararka ayaa sheegaya in Liverpool ay ka mid tahay kuwa badan oo Premier League ah oo la soo bandhigay inay la saxiixdaan daafaca midig ee khibradda leh Denzel Dumfries oo ka tirsan Inter Milan. Qiimaha lagu burburin karo qandaraaskiisa waa 21 milyan ayaa soo jiitay kooxo badan oo Yurub ah waxaana la sheegay in wada hadallo ku saabsan bixitaanka xagaaga ay socdaan. Wakiilada Dumfries ayaa doonaya in 29 jirkan u helaan koox weyn oo Premier League ah iyadoo Liverpool ay ka mid tahay kooxaha la xiriiraya. Kooxo waaweyn ayaa la xiriiray sida Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham iyo Newcastle ayaa sidoo kale la xiriiriyay. Dumfries ayaa Inter Milan u sameeyay 51 gool, 25 caawin, 199 kulan oo uu ciyaaray. Inter ayaa doonaysa inay heshiis cusub la gaarto Dumfries si ay meesha uga saarto qodobka lagu burburin karo heshiiskiisa balse fursadaha uu ugu ciyaari karo kooxaha England ayaa laga yaabaa inay ku qanciso inuu baxo. Hadda Liverpool waxay fiirsanaysaa in la soo saxiixato Dumfries inkastoo la aaminsan yahay in saxiixa daafaca dhexe uu yahay mudnaanta koowaad. Sidoo kale Liverpool waxay hoggaanka u qabatay tartanka Premier sida laga soo xigtay. Liverpool ayaa noqotay kooxda Ingiriiska ugu dhow ee heli karta saxiixa daafaca Brazil ee Bremer oo ka tirsan Juventus kadib markii ay ka hormartay Tottenham. Inkastoo tababaraha Juventus uu Bremer u arko ciyaaryahan aan la taaban karin haddana 29 jirkan wuxuu ka tagi karaa kooxda haddii la bixiyo qodobka lagu burburin karo qandaraaskiisa oo ah 47 milyan ilaa 54 milyan. Weeraryahanka Inter Milan Lautaro Martinez ayaa Bremer ku tilmaamay daafaca ugu fiican ee Serie A. Bremer ayaa Juventus u ciyaaray 115 kulan tan iyo markii uu ku bilowday 2022 isagoo horay 110 kulan ugu soo ciyaaray Torino muddo 4 sano ah. Saaxiibayaal waad mahadsantihiin ha ilowin inaad subscribe saartaan gaar ahaan waxaan kaga codsanayaa inaad 100 subscribe nagu tuurtaan mahadsantihiin.